maalinta bariya magaalada Muqdisho waxa lagu wadaa in ay ka dhacdo doorasho muran badani uu ka taagan yahay isla markaana dadka siyaasadda Soomaaliya odroso ay u arkaan natiijooyinkeeda in la sii og yahay marka la eego sida loo qaabeeyay iyo waliba sida loo qabanayo intaba xisbiga madaxweynaha uu hogaamiyo ee JSP la yiraahdo ayaa loo badinayaa in inta badan kuraasta loo tartamayo ay ku soo bixi doonaan waxyaabaha kale oo la yaab kale waxa kamid ah in guddiga doorashada ee qabanaya doorashadan xitaa isaga lagu muransan yahay oo mucaaradku ay si weyn u diidan yihiin marka la eego sharciyada lagu dhisay jiraalkiisa iyo hanaanka baarlamaanka loo mariyay marka isaga iyo afartii cutub ee dastuurka ahaa ee la bedelay sida mucaaradku ay sheegaan loo qiimeeyo xaaladda dalka waxay u eg tahay doorashadan inay noqon karayso mid madmadow cusub oo hor leh kusoo kordhin doonta siyaasadda Soomaaliya arrimaha kale ee la yaab kale waxa kamid ah madaxweynaha dowladda federaalka ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ee waqtiga uu ka dhamaanayo ayaa caawa waxa uu la hadlay dadweynaha isagoo laga soo duubay muuqaal isla markaana warbaahinta aan loo ogolaan inay wax su'aalo weydiiso muuqaalka madaxweynaha oo ku dhawaad 10 daqiiqo soconayay ayaa waxa uu ekaa mid la qorsheeyay lana sii qaabeeyay marka la barbardhigo hadaladii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo warbaahinta ka jeedin jiray dadweynahana uu kula hadli jiray marka la eego muuqaalkan iyo khudbadu sida isku saarneed waxay dareysay dhowr fariin oo kala duwan marka koowaad madaxweynuhu waxa ka muuqanaya qoys badan iyo walaac uu ka qabo doorashada sida loo filayay inay u dhici weyso sabab la xiriira dadka oo aan kalsooni badan ku qabin hanaanka doorashada ay u socoto mucaaradka oo fariimo xoogan diray iyo waliba natiijada doorashada oo la sii qiimeynayo maadaama xitaa meelaha qaar marka la arko sida ay wax u socdaan bandow lagu soo rogay wadooyinka arinta kale la yaab kale waxay tahay in madaxweynaha fariinta uu diraya ay sidoo kale jawaab u ahayd siyaasiyiinta qaar oo ka digay xaaladda amniga goobaha lagu codeynayo oo ay tilmaameen in dadku ay si weyn u sii feejignaadaan marka ay doorashada aadi karaan amaba haddii ay suuragal tahay ay guryahooda iska joogaan waa fariinta qaar ka mid ah mucaaradku ay warbaahinta u direen dhinaca kale madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo aad u beer la xawsanaya shacabka caasimadda ayaa tilmaamay in doorashooyinka ay yihiin mid ay ku tartamaan dadka ilbaxa ah isla markaana mustaqbalkooda ay ku go'aamiyaan laakiin waxay su'aali ka taagan tahay xisbiga madaxweynaha iyo dhowrka xisbi oo lacagaha ku bixiya ama urur siyaasadeed sida loo dhigayo suuragal ma tahay in ay matalaan aragtida 3 milyan ka badan ee Muqdisho ku nool haddii doorashooyinkan ay dhacaan oo caasimadda bas lagu qabanayo dawladda maxaa uga qorsheysan aragtida kale ee ka hor imaanaysa iyo waliba dhinacyada milgaha iyo miisaan kale ee doorashooyinkan qaadacay madaxweyne Xasan Sheekhne ma waxa uu hadda garawsaday awoodda shacabku ay leeyihiin isagoo dhinaca kale iska dhaga tiraya baaqyada mucaaradka ka imaanaya su'aal kale ayaa halkan imaanaysa oo la xiriirtay aragtida shacabku ay qabeen ee ah in go'aanadooda siyaasiga la meel mariyo markii madaxweynuhu lahaa kuma tahay adiga xilligaasi uu ka hadlayo waxyaabo shacabku ay si weyn u diidanayeen xilli mucaaradku sidoo kale ay dalbanayaan wada hadal isla markaana madaxweynaha uu ka gudbo doorashada halka dhinaca waxay u ekayd fariintii caawa madaxweynuhu uu diray in macnaheedu yahay mucaaradkii Kismaayo ku shirayay door kuma laha siyaasadda Muqdisho hal la eegaya sida mucaaradku ay ku doodayaan waxa ka soo baxa doorashooyinka ay qireen in natiijooyinkeeda la sii og yahay caalamkase ma laga dhaadhicin karaa inay aqbalaan waxa Muqdisho ka socda aad baad u mahadsantiin